السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وعن داوده markale ku soo dhawow cashar kale oo xiiso badan oo ku saabsan warbaahinta. Haddii maanta ay kugu horeyso boggan, fadlan subscribe dheh, aladkana furo, waad la wadaagi kartaa saaxiibada. Ku soo dhawow casharkeena maanta. Casharkeena maanta waxa uu ku saabsan yahay ila wareedka sources. Haddaba waa maxay sources ama ila wareed? Ila wareed waa halka laga xigto xogta aad rabtina dad u baahisid. waxaana ay u kala baxaan laba noocood oo kala ah primary iyo secondary. Primary-ga waxa loo jeedaa macnaha waxay u kala baxaan haddana af Soomaali ku iraahdo laba nooc oo ah ila wareedka gacanta koowaad iyo ila wareedka gacanta labaad. Gacanta koowaad macnaheedu waxa weeyaan cidda sheekadu ay khusayso ee iyada ay ku dhacday ama aqoonta u leh ama waxa laga hadlayo sheekada gundhiga u ah. Tusaale ahaan haddii laga sheekaynayo sicir barar dhacay waxa primary ama kow u ah dadka uu saameeyay sicir bararku. macnaha haddii primary-ga la waayo sheekadaadaas sheeka ma aha oo lama samayn karo. Secondary-ga waxa noqda dadka falanqeynaya iyo dawladda laftigeeda oo ah maxaad wax looga qaban waayay iyo waa maxay xalka jira cid la weydiinayo. sheekooyin badan oo hadda aan warbaahinteena ka daawano waxa lagu wareystaa oo kaliya secondary sources. oo tusaale ahaan meelba waxa laga soo sheegayaa in abaari ay ka dhacday ama in dil uu ka dhacay ama in kufsi uu ka dhacay oo kale. waxa la hadlayaa gudoomiyaha gobolka taliyaha ciidanka oday meesha jooga qof goob jooga ah dhamaantoodna maaha primary source maaha waa secondary. haddii marka la waayo iyadoo laga hadlayo dhibaato kufsi cid kufsigii uu ku dhacay haddii la waayo macnaheedu waxa weeyaan sheekadaas ma jirto. haddii sheekada laga hadlayo cid ay saameysay aanay jirinna dee waxa aad ka hadlaysay sheeko ma aha waa waxaad adigu iska malaawaanatay. waa khasab marka sourceska ila wareedka laga hadlayo in la helo cidda ay khusayso. tusaale kale haddaan usoo qaadano dhinaca siyaasadda haddii mas-uul uu iscasilo oo uu ka tago shaqadii cidda laga wareysan kara ugu horeysa ee kow ah sababta uu shaqada uga tegay ma aha cid kale saaxiib ma aha cid wasaaradda ka tirsaneyd ama hay'adda ka tirsaneyd ma aha waa isaga qofka laftigiisa. haddii qofkii iscasilay la waayo ama wax xaqiijinaya inuu iscasilay la waayo oo primary source-kii la waayo sheekadaadaas sheeka ma aha maxaa yeelay xaqiiqdii lama hayo. haddii laga hadlayo dhibaatada ciyaalka derbiye jiifka ama strategic drink loo yaqaano ama xabaglayaasha koola dhuuqa meelaha qaar looga yaqaano haddii sheeko laga samaynayo oo yani dhibaatadooda laga hadlayo oo laga hadlayo sida ay cunto la'aanta iyo dhaxanta ay hurdaan iyo dhar la'aanta iyo caafimaad darrada iyo mushkilada ka dhexdhacda sheeko laga samaynayo oo iyagii la wareysan waayo oo laga yani la wareysto cid ka shaqaysa xataa haddii la wareysto sheeko ma aha maxaa yeelay dhibka aad ka hadlaysid cidda ay khusaynaysay lama hayo macnana uma samayn karaan dadkan secondary-ga ah. markasta ku dadaal sheekada aad samaynaysid inaad heshid cid waxan ay saameeyeen oo ay ku dhaceen taasaa dadkiina xiriir sheekada kula samayn karta. marka haddii hadda tusaale ahaan ay noqoto secondary sources ila wareedka labaad iyo kan koobaad keebaa loo qaadanaya oo muhiim ay tahay waa midkaa koobaad. kan haddii la waayo sheekadii way socon kartaa way suurtageli kartaa laakiin haddii la waayo ciddii ay waxaani ku dhaceen sheekadaadu sheeko ma aha. aad iyo aad baad u mahadsan tahay. intaas ayuu nooga egyahay casharkii maanta. fadlan haddii aad ku cusub tahay maanta subscribe dheh aladkana furo comment bixi wixii fikrada share garee dadkana la wadaag. aad iyo aad baad u mahadsan tahay sidaad u daawatay. tan iyo kulanti dambana waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.